وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني وقابريايا ووطني وقلكادايا ووطني كوقبا كرايا ووطني xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa safaro dardargelinaya furitaanyo xafiisya maalmihii ugu dambeeyay ku gaalabixiyay hawdka waqooyiga iyo bariga gobolka Togdheer waxaana wafdi ballaaran oo horkacayo hogaamiyaha xisbiga mucaaradka wadani mudane xirsi cali xaaji xasan si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanada waqooyi ee gobolka Togdheer oo ay kamid ahaayeen didiinta Booramo Kalbarre iyagoo dadka deegaankaasi ay si niyad samaana u qaabileen mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani siyaasiyiinta deegaanadaasi ka soo jeeday sidoo kale siyaasiyiin kamid ah xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa halkaasi ka hadlay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo isaguna goobtaasi ka hadlay ayaa deegaanadaasi u ballan qaaday waxqabadyo hor leh xasan deegaankiisii kamid ah tuuladan la yiraahdo dildeynta aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa hogaamiye ku soo dhawow waa deegaankaaga oo dadkaaga aad iyo aad u mahadsantihiin raalli baanu ka nahay hawarwarina idinku fartiinu yeedin ciilin ninkii la oran jiray salaan carabi wuxuu yiri mar haddaan hagoogta iska rogay soo hanqaabsaday saxiniya kuwaaga ma ahe baan leeyahay muraad waa kuwa lagu barbartaagan yahay nin ani yiri rag iska reeb saxiniya aad ku anjabaysa horta waa kuwii xandulle 20 saacadood gudahood baan cafis u fidinayaa inuu ku soo galo isku soo dhiibo wadani waa dagaankii soo saaray hal kursi hadduu la soo baxo hal kursi hadduu la soo baxo waa wax qabad la sheegayo marka cagabta alla idin kale baan kala ku soo dhaafnay beeraha loo dhaqaaq lahaa baan joognaa siir miya ka haysan wasaaradda beeraha biya qoraal ka haysan baan keenayna insha Allah deegaankan soo gumeedaan codayn baalka la yaado xildhibaanada burco soo idu kumeedaan codayn soo meerkeedu kumeedaan codayn soo degmada burco ma sii maado way miyo iyagu xeedin qabtay عدي وحدين قبنا يساتين سوما عدي وحدين قبنا يساتين عدي أساسو صار يسا عدي أساسو حسكو درسنا أنا كقول يسنا باهدين إن شاء الله تعالى وحول بانو كقبنا إمن كانوا حنو سي بلعبين استيش كانوا ندير السنة دالة كده geesta kale gudoomiyaha iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa gaadhay deegaanka Gaatama ee degmada Qoryaale halkaas oo ay ka dhagax dhigeen dugsi waxbarasho dadka deegaanka ayaa soo dhaweeyay waxqabadka xisbiga mucaaradka wadani تمام وحن حرسي علي هاش حسن كقدوم اسكولكي وقلكادايا وقابريايا وقلكادايا كوقبا كرايا ووطني safarada dardargelinta ee siyaasadda xisbiga wadani waxay ku baaheen deegaanada ceeldheere dawacaale iyo deegaano kale oo ay gaadheen wafdi uu hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani ee gobolka Togdheer waxaana qaabilay taageerayaal muujinayay astaanta xisbiga wadani kuna faraxsanaa wafdida soo gaadhay waxaan ku hadlayaa afka dawacaale nageegar anigoo ah gudoomiyaha haweenka dawacaale waxaanu taageersanahay xisbiga wadani waxaanu leenahay kii horeenu dooranay xubka ma faa'iido adna ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa inaannu kugu khasaaroobin inoomay tudhin waxanba inoomay qaban gabadha halkaa ku umusha ama waxay iyadoo jidka markay burcal loo siqayo jidka ku dhigbaxdaa wax allaale waxay inoo qabteen miyaa garanaysaan xisbigan talada haya dalka ayaa hagraday dadkiisii halkanna wuxuu la soo taagan yahay kontiinar buu dadku iigu jiraa oo dadku aniga ayuu ii xaraysan yahay war ma kulmiyeenu xaraysanahay ma kulmiyeenu xaraysanahay wafdi kale oo kamid ah xisbiga wadani uu hogaaminayo xogayaha xiriirka gobolada Xamarji ayaa iyagana lagu soo dhaweeyay deegaanada hawdka magaalada Burco gaar ahaan Labigoon iyo Ballihiile halkaasi oo xisbiga wadani uu ka furtay 4 xafiis wadanka dhisaya waa wadani bulshadu wadataa waa wadani xisbiga wadani waa ku mahadsantihiin mana sadglaan doontaan barada walaan doontaan waxaan idin magacaabi doonaa degmo war magaalo isugu baxaynta barnaamijka kulmiyada kuma jirto ka wadani bay laakiin ku jirtaa waxaas xirbayado jirto dalku waa isku wada mid laakiin waxa leeyahay marka dalka ka soo baxday mas'uuliyadiisa ee aad xirbar kala deegaantimada wasaaradda maaliyadda noqonaysa laakiin wajaalo lacag guddoonsiisid wasaaradda maaliyadda ku noqon maysid sixirbarka waan idinka jabinaynaa sidan idinku ahaan maayo
xoolaha waan idiin suuqeynaynaa. xisbiga mucaaradka wadani waxa kale uu muujiyay awoodda uu ku leeyahay deegaanada Qorligud, Coodanle iyo Wadamago, halkaas oo taageerayaal kaga soo biireen xisbiga wadani, waxaana wafdida deegaanadaasi gaadhay hogaaminayay xogayaha amniga ee xisbiga wadani. taageerayaal ku qancay siyaasadda xisbiga wadani ayaa xisbiga cudud uga muujiyay degmada Wadamago. wuu dhamaaday haddaa maqal jirtaan kulmiye waqtigiisi wuu qaatay xisbigii kulmiye ee aanu soo saaray ku soo saaray wuuna dayacay xisbigaas. waa ayaan daro maanta in xukuumaddii iyo ragga xukuumadda ugu jiray ay maanta isugu dhiibaan Coodanle qorsho. horta waxaan u soconnaa haddaad tihiin reer Coodanle taan kaararkaad ku qaadateen inaad codka siisaan wadani. waxaan idin leeyahay dhinacin awrku haddii dhinac u dheeliyo dee wuu dhacaa markaa dalkuna inuu dheeliyo maaha xaggaa u dheeliyo. maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto, Ariel TV, Burco.